gobolka hiiraan inta ay Soomaaliya u baahan yahay goboladeedu arrimaha bulshada markaan ka soo qaadno marna biyaana qaada marna biyalaana ugu dhacda wadadeenni waa taas isbitaal ma laha airportna ma lihin ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha gobol Soomaaliyeed oo aan 15 mashaariic laga sameyn ma jiraan annagu mararka qaar waxaan isweydiinaa war miyeedaan Soomaali ka mid ahayn ma gelinka shanaadatiin tii waxana loogu sii daray ilmihii aanu islahayn hadda mutaqaanaa ciidan leedii sameeyay in la yiraahdo waa la ka qaaday waxa la geynayaa mutaqaanaa galgaduud iyo mudug waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo African Union iyo qaramada midoobay haddii la damco dawladdu inay xoog ilmahaas ku wado cawaaqib xumadii ka dhacda annagu mas'uul ka mani waxaan rabnaa dawladdan waxaan maqli jirnay waa dawlad dib u heshiisiineed waxaan rabnaa gobolka Hiiraan intaasoo qabiilo isla degan tuulo u gudbi karta ma laha qabiilooyinkii oo dhan dhibaa dhaxyaan waxaan rabnaa inta nagu xeeran oo gobola iyo maca annaga dhaxdeenna hadday dawladdu dawlad Soomaaliyeed tahay inay dib u heshiisiin noo samayso markii la heshiiyo ayaa wax la isku darsan karaa wax la wadaagi karaa waxay ummaddu u baahan tahay ummadda loo qabanaanay tuulooyin uu ra'iisul wasaaruhu wuxuu joogay 2 bilood oo ku hooyanaya tuulo konton guri aysan lahayn annagana wiligii nooma imaan taa bedelkeeda wuxuu ka dhigay inuu yiraahdo reer Hiiraan hadday diidaan warkayga ayaga dhanba waa ka ruqsaynaya mutaqaanaa inta yaroo hadda la qoro calalada wata waxaan hadalkayga ku soo koobayaa dawladda Soomaaliya annagu maxaafadaan ku ahayn laakiin saacadan laga bilaabo go'aankan ka qaadanayno waa inaanu bannaankaas ay naga marto haddii kale ummad Soomaaliyeed aan nahay gobolada Soomaaliya la mid nahay xuquuqdan ku leenahay hana laga siiyo oo hana siiso oo sidaan u tixgelin hana loo tixgeliso